بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن xiisa badan muuqaalka rabo inaan idinla wadaagana wuxuu ku saabsan yahay laba arrimood oo rabo inaan baraarujiyo oo midda koowaad ee ugu horeysa waxa weeye arrin ku saabsan cunnada iyo arrin kale oo ku saabsan exercise-ka ama jimicsiga iyo saameynta caafimaadka iyo faa'iidada ay ku leedahay jirka. waxaa inta badan aan aragnaa hooyooyinka ayaa mowduucan gooni u yahay, inkastoo aan rabo inaan mowduuc kale oo uga hadlo xagga raggana ay jiraan, balse qodobkan aan rabo inaan baraarujiyo waxa weeye inta badan cunnooyinka aan cunno Soomaali ahaan haddii la yiraahdo waxay u badan tahay cunnooyinka bariiska iyo baastada iyo canjeero haddii ay soo raacdo. intaasna waxay ka kooban tahay hal nooc oo nafaqada markii la kala qaybiyey hal nooc ayay ku aadaysaa, waa nooca loo yaqaano carbohydrates ama sugarka ama nooca glucose ay ku badan tahay. nafaqooyinka kale ee sida proteinka, vitaminska oo qudaarta laga helo iyo fatska inta badan Soomaalideena haddaan nahay way ku yar yihiin in si gooni ah loo qaato. si gaar ahna proteinka iyo proteinska iyo vitaminska oo labadaas aad muhiim u ah caafimaadkana qayb muhiim ah ka qaadata iyo shaqeynta jirkaaga iyo inay si hagaagsan u shaqeyso. waa labada wax oo ka qayb qaata. marka inta badan nafaqada inay isku dheelitiran tahay aad ayay u yar tahay, si gaar ahna waxay saameyn inta badan ku leedahay dadka jilicsan oo hooyooyinka maadaama ay uur qaadayaan ilmo dhalayaan kadibna macnaha ay saa ku joogayaan haddana ilmo kale ay qaadi karaan. nolosha culaysidiisa inta badan hooyada ayay ku dhacaysaa. marka waxaa loo baahan yahay markaa in si aad caafimaadkaaga uga shaqeyso inaa hooyooyinka ay ku baraarugsanaadaan in loo baahan yahay inay cunnooyinkooda hagaajiyaan, saddexda nooc ee nafaqadana ay qaataan si isku dheelitiran si ay u helaan caafimaad. waxaa la ogaaday in qayb badan oo ka mid ah caafimaadka hagaajintiisa inay ka qayb qaadato in qofku uu nafaqadiisa hagaajiyo. si nafaqadaada u hagaajisana waa inay cunnadii ay isku dheelitiran tahay. cunno inaad iska qaadato maaha. inta badan waxaa la qaata carbohydrateskaas oo cunnada bariiska iyo baastada, kadibna dee qofka hilib iyo xoog unbaa ka muuqdee hoosta iyo gudaha waa xash, wax badan kuma jiraan, tayo ma leh, quality ma leh. marka si aad quality u yeelatid ama tayo u yeelatid caafimaad ahaan markii laga hadlayaan sheegaya waa in aad nafaqada ku hagaajisaa. waxaa arkaysaa qof xooggan u weyn oo haddana aad markaa baartid anemiga noqonaya oo markii jir ahaan la eegay laakiin qof xooggan ah. maxaa weeye nafaqadiisii ayaan isku dheelitirayn, sidaa darteed waxay keenaysaa nutritionalka markii nafaqadii uusan hagaagsaneyn qofkii inuu anemic saa u dhaco. marka arrintaasna waxay saameyn ku leedahay caafimaadka guud ahaan oo dhan. qodobka labaad oo isagana waxa weeye qofka inuu dhaqdhaqaaq sameeyo, jimicsi sameeyo. inta badan hooyooyinkeena waa garanaynaa inta gurigay u badan yihiin. markii guriga inta badan way fadhiyaan waqti badan, hadday meel aadaanna waa inay fadhiistaan un keliya, taas oo iyadana dhibaato ah. waxaa loo baahan yahay inaad dhaqdhaqaaq samaysid, activity samaysid, jimicsi samaysid. hooyooyinka adduunka markii la isku eego iyo hooyooyinka Soomaalida way kala duwan yihiin, sababtoo ah hooyooyinka Soomaalida waxaa dhici karta inay iyagoo 40 saa markay uga baxaanba inay qof weyn oo age ay noqdaan, laakiin adduunka 40 jir ayaa waxa u bilaabanaysaa hooyooyinkooda noloshii oo dhan markaas ay u bilaabanaysaa. waxaa loo baahan yahay marka inaad caafimaadka si ugu hagaajisid aad dhaqdhaqaaq samaysid. sidoo kale nolosha macnaha inta badan waxaa arkaysaa hooyo 50 ama 60 jirta oo hooshii oo dhan laga cadilay oo qof la fadhiisiyey wixii oo dhan dadkii ay qabanayaan. taasna sax ma aha. waxaa loo baahan yahay in hooyadu ay wax qabato oo dhaqdhaqaaq samayso, activity yeelato, oo maskaxdeeda ka fikirto oo xisaabtanto oo lacag ay xisaabiso si nolosheeda ay u sii socoto ilaa waqti ay gaarto. waxaa arkaysaa adduunka 70 jir macnaha sidii gabar yar ah u soconayo xooggan oo jigjig leh, laakiin hooyinka markaa aragtid Soomaalida waa qof isku dhex daadsan oo hilib badan uu saaran yahay. haddaa aragtid hadduusan hilib saarnaynna macnaha aan awood badan iyo tabar badan lahayn. marka labada qodob oo nafaqada inay hagaajisaan iyo inaad dhaqdhaqaaq samaysaan oo jimicsigiina aad ka shaqeysaan caafimaadka ayay faa'iido weyn u tahay. arrintaas ayaan rabay inaan baraarujiyo. aad ayaad u mahadsantihiin inaad la socotaan muuqaalkan mid la mid ah ama midka ku xigay intaan ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.